Salaamu calaykum. Sheekadayna maanta waxay ku saabsan tahay qoyskan beeroola ahaa ayaa waxay lahaayeen gabadh yar iyo inan yar oo kale. Waxayna ahaayeen dadka intii geedaha googooya hadhow toolana ka soo iibiya magaalada. Maalinta aad ay u darneed dabayshu, gabadhiisii baana ku tiri dabayshu aad bay u darantahay, xaafadda ma ku noqonaa oo beri ma u soo noqonaa. Isaguna waxa uu ku yiri xaabadu way nagu badan tahay, waynu wada jarjarnay, ma wada guri karanay, iminkaan wada jarjarano han dhamayno, beri toolana han u soo noqonne ee hawsha ka gaarsii. Gabadhii waa ay ogolaatay, waxayna bilowday hawshiina waa ay sii waday. Laakiin maalinta waxa da'ay roob duufaano iyo wax walba wata. Odaygiina waa ay u sheegtay haddana waxay ku tiri roobku wuu adkaanayaa, dhinacaynana wuu soo socdaa, dhinaca xaafaddana way naga xigaay. Namari aan caruurtii u tagnay oo shaqadan iskaga tagnay. Odaygii isagoon hadalkiiba ku calin geedkuu jarjarayay ayay dabayshii soo riday. Odaygiina geedkii intii leeka ayaa ku fadhiistay. Islaantii si walba geedkii waxay tiri gagajiid wayna qaylisay. Dadkii meesha ku dhawaa ayaa markii dambe qayladeedii maqlay, waxayna ku lahayd caawiya kaalay meesha ka soo saara geedka inta leeg ayaa ku dhacay. Markii dambe ninkeygii way ka soo hoos jeeday, waxayna weyday cid kale oo caawisa, wayna ag fadhiday. Meeshan xaafadu uma dhaweyn. Qayladeedii markii dambe waxa uu yimiday dad ka mida tuulada ayaa yimiday siday u soo eegaan meeshay ku dambeeyeen. Gabadhii bayna la hadleen, waxay ku yiraahdeen ninkaaga waa ka dhintay, waxa aad samaysaa adigu kaalay caruurtii u noqo. Dabayluhu iyo roobabkuna aad bay u daran yihiin meesha ka soo kac. Markaasay ku tiri ninkeyga umeyda meesha kaga taga, kaalay la jiida han sii qaade oo gurigaan dhex dhige, halkan ayay ku cuni doonaan eewaanadu ee kaalay la qaada. Markaasay gabdhihii way ka kala aamuseen, waxay ku yiraahdeen ma qaadi karayno ee meeshan inaga mari, hawaduna waa ay joogtaa, hawaduna aad ayay u badan tahay. Gabadhii markii dambe way kari waayeen, hawadiina waa ay sii badatay, iyadana sidii oo kale geed ayaa ku dhacay. Labadii qof geedkii weynaa waa ay ka kala jiideen siday iyaduna u badbaadiyaan oo meesha uga kaxeeyaan intayna hawadu sii badan. Gabadhiina waa ay socon kari weyday, markii dambe looxay sideen ayay ku qaadeen, waxayna ku lahayd hayga kaxaynina oo haygaga tegina meeshan, ninkaygii baa jooga. Laakiin iyagu waa ay kaxeeyeen. Islaantii markii dambe waxay noqotay islaan aan lugaha ka karayn. Inteedii yareedna dib ayaa lagu keenay. Markaasay ku tiri hooyay dhageyso, roobabka ma kala istaagayaan, aad bayna u badan yihiin, waxaa samaysaa adigii naftiina yar meeshan ka baxa. Markaasay ku tiri hooyo ma meeshan ayaan kaaga tagaa oo halkee ayaan tegi karayaa, han kula jooga uun intaan ku arkaya adigoo noo meel ma tegi karayo. Islaantu waxay ku tiri gurigeenu meel goda ayuu ku jiraa, biyuhuna si degdeg ah ayuu u soo gelayaa, gabadhiheena iyo caruurtuna way yar tahay ee kaxee caruurta oo bal waxaad geysaa dusha sare, waxaa laga yaabaa inay halkaa biyuhu naga kala yaraadaan. Meeshana aan ku korsiiyo adigana oo hanna raacdin, halkan haddaan kaaga tago biyaha koobaad ee guriga soo gelaya adigu ku qaadanaya. Markaasay ku tiri gabadha yar kaxee. Markii dambe gabadhii yareedoo yaaban ayaa timiday, hooyadeed bayna ku soo carartay. Markii dambena waxay ku tiri hooyo waxaa samaysaan dushii oo dhan roob ayaa ka buuxa, xaafadihii jaarkeenana qaar ayuu qaaday, ee maxaa aan samaynaynaa. Gabadhii baa markii dambe ku tiri naawaan ogahay inuu roobku meel walba soo gaaray, hooyana maan doonayn inaan u sheegay, yaa kugu yiri u sheeg, maad iska aamusnaatid, waa maxay afkan kaa soo horeeya aad wax walba ku sheegaysaa. Markaasay ku tiri anigu ma mooday inaad hooyo ka qarinaysid, laakiin xaafadiinii jaarka waa uu qaatay, inagana in yar ayuu inoo soo jiraayay, meeshan inaga saara han ka cararne. Gabadhii way xanaaqdo, waxay ku tiri meeshan hooyo lagagama tegayo, ama daadku ina wada qaadaya kelideedna ma qaadayo, ama inamasha dushaa sare han tagne waan halkaa kaga badbaadne. Islaantii baa ku tiri haddaba waan in raacaya hislaynina ina marina gabadhan yar qabso oo meesha ka soo baxa. Islaantii baa ku tiri hooyo hislaynina ee inamasha. Gabadhiina waxay eegtay roobku siduu dusha sare u garay. Markaasay ku tiri waayahay ee inamasha. Gabadha yarna hooyadeed ayay u sheekeynaysay, waayo aad bay u yar tahay waxuma kala garanayso. Hooyadeed baa ku tiri dusha roobku muu ka sii darayaa mise waa uu dhaama, maxaad la warwarsan tahay oo aad dusha ka eegaysaa. Markaasay ku tiri hooyo dushii way ka dartay, roobkuna aad buu u buuxaa, haddana guriga waa ay dhaamtay intuu biyuhiina xarqin lahaay, ina mari dusha aan tagne, adiguna aniga ayaa ku qaadaya ee ina mari.
kaas islaantu ku tiri maya socda roobku wiina soo gaaraya aniga halkan igaga taga idinkuna dusha jooga ilaa intuu biyuhu in soo gaarayna soo daadigna gabadhii yareed baa ku tiri kaama tagay hooyo wax walba aanu samayno halkan ayaanu joogana anaguna biyuhuna hana qaado hadaanu rabno islaantii aad iyo aad bay hablaheeyii ulala ooyeysay gabadhii baa ku tiri ha hooyo keligeen dusha ma tegine ina mari si aan kuu qaadnaba hanu kuu qaadnay dushana han ku geyne markii dambena dadkii oo dhanba waxay haayeen kuwa iska garanaya waxyaabahan ku soo socda qof xaafadiisii ka burburtay qof isaguna wax walba uu sameeyay uu garan laayay meeshii ay tageen ay ku qarsoomayeen markii dambe meeshiina biyuhu soo galay laakiin biyuhu intaa waa u daamay gabadhii yareed baa ku tiri biyahani waa uu badan yahay kamana bixi karayne maxaa aan samaynaa meeshan iga saara biyaha waan ka cabsoonayaa laantii baa ku tiri anigu kaabadan ayaan ku dul fadhiyaay orod idinku iska socda waxaana laga yaabaa inuuna roobku mar dhow dhamaado uuna ay soo gaarin ee meeshan gabadha yar ka saar markaasay ku tiri hooyo meesha lagama baxayo waynu wada joogaynaa adigu waad luga beeshay oo ma socon karaysid anigana warwar ayaad igu dilaysaa haddii aan meeshan kaaga tago adiga markaasay ku tiri maya idinku waa soconaysiin haddii kalena anigu biyahaas ayaan isku dhex tuurayaa haddii aad socon weydiin gabadhii baa markii dambe ku tiri ala hooyo sidaa ha samaynin wax walbood rabtidna aniga ayaa samaynaya gabadhanna meeshan waan ka saaraya ee adigu kaabada fadhi haddii aan kuu soo noqon karayna waan kuu soo noqon haddii kalena halkaasay fadhiiso markaasay ku tiri hayma soo noqon kartid gabadha ayaa yarna hayso haddii aad i weydidna gabadha adiga ayaan kaaga tegay dib dambaysana meesha uguma soo noqonaysid ma garatay markaasay ku tiri noloshaydana hay khasaarinina gabadhii baa ku tiri may hooyo kaama tegi karayo wax walbood rabtid waad nagu samayn kartaa gabadhii yaraydna ooyintii way bilowday markuu biyihii ku barteen islaantii markii dambe ku qaylisay gabadhii yareyd gabadhii weyneed qasab ayay ku noqotay inay gabadhii kale ay qaado oo ay meeshana ka saarto iyadoo aad iyo aad u ooyeysa oo diidan gabadhii yareyd ee kalena waa ay diiday inay hooyadeed kaga tagto meeshan gabadha kalena waxay ku lahayd ina mari hooyo ayaa sidaa tiriye gabadhii weyneed baa ku tiri amba maan doonayn in aan ka tago laakiin yada ayaa igu tiri tag oo noloshaada badbaadiso gabadha yarna waa la kari waayey hooyadeed ayay u ooyeysay ku lahayd iidaayahan la joogeen islaantii markii dambe ay aragtay inayna hablaheegu ayar meeshan kaga baxayn ayay ku tiri haddaba waanin raacayaa waxaad igu kaxaysiin ii raadiya oo aanin ku raaco anigu ma socon karayo oo kaabadaha haddana kama daadegi karayo islaantii agteeda markii dambe waxay ku aragtay baaskiiladuu odaygaygu wadan jiray baaskiiladii markay aragtayna gabadheedii bay ku tiri isoo fuushii halkii baynay baaskiiladii lugaha ku dhaqdhaqaajisay biyihiina islaantii iyo gabadhii yareyd iyo hooyadoodba sidaas ayay kaga badbaadeen sheekadeeniina intaasay ku